السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وهذا الجنة كنا حمد حرقه يعني إن شاء الله ما تحكى للدنا سيد ميسان كل إسكاقدمه حال أما الله أسبوع بس جده هذا يعني مركا إن شاء الله وسيد أوقف وسمين كرتين إن شاء الله فائدة أنا حكوا أركض دون تاتوين برجده هاد وحنا قصة ولا كيلو صدح كيلو مراسنا كعد عضو مركا إن شاء الله مرة أنا أورك إنت كوزي ديرايو وجده جدي دنا هذا بلعبايا qodobka koowaad sameynayso wuxuu yahay ina maalinkii oo dhan laba jeer bas uu qofku wax cuno marka waxa loo jeceshaa cuni kartaa laakiin labadaas waqti waxa waaye meesha saddex waqti cunto ka cun lahayd oo kale laba mar bas ina cuntid marka waxa sameyn kartaa oo kale subaxii quraacda waqtiga aad cuni jirtay ayaa yara dib u dhigi kartaa marka qadada soo dhowdahay oo kale ayaa waxa cuni kartaa quraac aad u fiican markaas kadib ayaa haddana markay maqribadii iyo casarkii mala u dhaxeeyana qadada ayaa cuni kartaa qada fiican marka labada cunto wax u dhaxeeyo badan ma cunaysid waxaan biyo cad ka ahayn ama hal koob cabitaan lama rabo inaa cunto kale oo xitaa cunto yarna xitaa sida biisada kale biskudka kale waxaas kale inaa cuntid biyo ama waxa cuni kartaa oo kale qudaar marka labada cunto marka cunayso inaa qudaar badan ku darsataa si protein uga heshid protein dhameystir maadaama laba mar bas wax cunaysid oo kale marka waxay sameynaysaa insulinkaaga ayay hoos u dhigaysaa qofka hadduu wax dhowr jeer cuntada ku noqnoqdo insulinkiisa kor u kaca marka waad kaanaysaa qofka marka hadduu insulinkiisa sareeyo inuu maxaa dhigi jiray miisaanka iska dhima ama baruurta jirkiisa ku jiro kale inay gubato kale oo maxaa la dhahay ay baabacdo aad u adkaanaysaa marka waxa laga rabo kaliya waxa waaye inaa quraacatid subaxii waqti dambe sida duhradii oo kale ama meelahaas oo kale oo xoogaa quraacda dib u dhigtid iyo inaa casho cuntid qodobka koowaad marka waa intaas cashadaadana hal mar cuntid waxa rabtidna waa cuni kartaa adiga waxa ku cajab geliya cuntada nooca rabtid ka cuni kartaa wax dhiba ma lahan qodobka labaadna waxa waaye insha Allah inaa seexatid 8 saacadood iyo wixii ka badan marka hurdadaada waxa waaye inay 8 saacadood ka yaraanin si kasto ay yeeshid insha Allah xitaa hadda isdiyaysid habeenkii 8 saac ma seexan kartid kala maalinkii inay seexatid waaye marka qodobka labaad waa muhiim hurdadaada waa inay 8 saac ka badan seexan kartid qodobka saddexaadna waxa waaye inaa stress iska yareyn kartid ama walaaca walwalka waxaas oo dhan inaa iska joojin kartid because hadii oo adoo iscaateyn ku jirto kale ama iscaateynayo kale hadii stress kula soo dirso stress ku soo daaya hormone loo yaqaan cortisol kaasna marka wuxuu aad u joojiyaa ama u yareeyaa qofku inuu miisaankiisa isdhimo ama jirkiisa uu faatka ama baruurta iska soo saaro kale marka aqoon ma noqonayso hada stress uu ku hayo kale inaa iscaateysido kale dib u adag tahay marka qodobka saddexaadna waa muhiim sidaas oo kale inaa stresska iska ilaalin kartid insha Allah insa iskaga ilaalin kartaa aad taqaanid marka inaa iska ilaalisada la rabaa qodobka afraad asagana insha Allah waa muhiim sidoo kale waa inaa exercise sameysid ama jimicsi marka insha Allah sida aad ku fududa u sameyn kartaa maalin la u sameyn kartaa maalin kasta daarabtid asbuuci 3 mar 4 mar insha Allah waxa ku dari kartaa oo kale marka aad waqti u haynin oo kale jimicsiga socod ina hal saac iyo wixii ka badan oo kale socotid oo kale marka insha Allah socodka laftigiisu waa exercise ku kamid yahay insha Allah asagana waa qodobka afraad waana muhiim inuu saka maqnaanin hadii Ilaahay idmo qodobka shanaad ugu dambeeya waxa waaye insha Allah inaa nutrition heshid insha Allah isagana waxa u baahan tahay inaa qaadatid insha Allah kiniyaashada sawirradooda in soo saaray ayaad qaadan kartaan si kalbigo kale midka kala hadda intuu asagana sawirkiisa potassium midkaan asagana uu fiican yahay insha Allah iyo nutritionist iyada wax u fiican tahay hurdada stresska walaaca waxaas oo dhan insha Allah iyadana ka caawinaysa marka iyadana waxyaabo badan ay ku fargaraysaa insha Allah fiidiyahayaga intaas ku dhan yahay shantaas qodob ayaa rabay insha Allah gabdhaha rabaa inay miisaanka iska ridaan hadda tahay gabar iyo hadda tahay wiilba insha Allah waxa idin rajaynayaa cafis iyo caafimaad iyo khayr badan sidoo kale insha Allah inta fiidiyo kale ku kulmi doona assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh